caalam inaga qarsoon. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، داوديال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواذا حلقة لباد برنامج كينا رمضان تاينو قلت لك الله عالم كينا قرصون وحين نعاون إن شاء الله تعالى سين حالة ولا كبر لني سحرك أيانو إن شاء الله تعالى بلو بدون أرنتيسة برانو إن شاء الله تعالى وحكي رشيك شيء إنه سليه قدونا سحرك ما كان لقي حيو علماء وحي كفس وحي كشيكتا سحرك وحي لهذين وحوي وعمل iyo hawl shaydaanka loogu dhowaanayo. waxay kale ku sheegaan sixirka asalkiisa waxay yiraahdeen waxa weeyaan in arin laga weeciyo wixii loogu talagalay ama xaqiiqadeedii laga weeciyo arin xaqiiqadeedii loogu talagalay caynkaas ayaa laga weecinaya. arintii hadda marba sida ahayd aad sidan u weecisay arinta waad sixirtay baa laga wadaa ay qoolku yahay. Aisha waxa laga wariyay tiri carabtu sixirka waxay sixir ugu bixisay maxaa yeelay wuxuu zuulinaya caafimaadka oo xanuun buu keenaya. marka hadduu caafimaadkii zuuliyey oo xanuun keenay waa sixir bay tiri Aisha radiyallahu ta'ala anha. ibn Faris qeyrkiina waxay iyaguna ay sheegeen kitaabka maqaayis luga waxay sheegeen waxay yiraahdeen sixirku waxa weeyaan wixii baatilka ah in sawirka xaqa ah lagu misaalo ama laga dhigo wax baatila intii xaqa in xaqi ayaa wax baatila laga dhigaya lagu bedelaya. taasi waxa weeyaan waa xaqii luqada waxa sixirkii wuxuu noqday arin la bedelayo oo wax kale lagu bedelayo. sharcigii culimadii sharcigu maxay markaa ku fasireen sixirkii waxay yiraahdeen arin walba oo qarsoon oo sababtiisuna loo malaynayo si aan xaqiiqadii ahayn oo loogu talagalay ama waxay kale ku fasiraan waxay yiraahdeen sixirku waxa weeyaan khidaac waa khaayinimo iyo bedelaad khaayinimo wadata. ibn Qudaama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala sixirka wuxuu ku tacriifiyay wuxuu yiri waxay waa cuqdadooyin la xirxirayo waa waxyaala lagu guntayo oo la xirxirayo waa ruqa iyo waxyaala la akhriyayo iyo hadallo lagu dhawaaqayo ama la qorayo ama la tufayo. arrimahaasi buu yiri wali qeexi buu wadaa wuxuu yiri arrimahaasi waxay waxyeelaysaa qofka la sixray jirkiisa ama qalbigiisa ama aqligiisa isagoo qofkii la taaban adoo gurigaaga iska joogo ay sixirku qofku ilaadanka ku dhici karaya. laguma taaban laguma iman waxba laguma geysan adiga shakhsiyan laakiin haddana waxa la sixro la bedelay aqligaagii wax la yeelay ama jirkaagii wax la yeelay ama waxa wax la yeelay qalbigaagii waxa waa dhibaato xaqiiqana markaad qofkii soo gaaro ayuu xaqiiqo noqonaya. xaqiiqo marka uu noqdo qayb ka mid ah qofka bini'aadamka way dilaysaa qayb qofka bini'aadamka xanuun bay u keenaysaa qayb waxa weeyaan qofka ninka ah ayaa waxay ka mamnuucaysaa inuu reerkiisii ama u galmoodo ama u taga reer ahaan. qaybi waa nooc waxay special ku tahay in labadii qof ee isqabay lagu kala kaxeeyo la isnacsiiyo laba aan shaqo isku lahayn la isjeclaysiiyo. intaasoo dhami waxa weeyaan waa tacriifaadka ay ka mid tahay ama asbaabaha dhacaya. culimada badna waxay yiraahdaan waa murakab waa arrin rakiban oo arwaaxda xunxun wax la isu geeyay qabato ayaa sixirka loo yaqaanaa. waxaana culimadu isugu soo gabagabeeyeen inuu sixirku yahay maa khafiya walatufa sababu wax qarsoomay sababtiisuna sabab yaroo latiif oo la dareemayn uu yahay. waxaa haddana lagu tacriifiyey tacriif weyna isaguna sixirku wuxuu yidhi waa heshiis dhex mara qofka saaxirka ah iyo shaydaan. saddex qof baa arrintan ay dhex maraysaa qofkii wax sixrayey iyo shaydaankii uu ku adeegsanayay qofkii wax sixrayey iyo qofkii la sixrayey. marka waxa weeyaan waa heshiis contract dhex maraya saaxirka iyo shaydaanku ku adeegsanayay oo ay tahay shaqadu in qofka saaxirkii ee wax sixraya oo waxyaalo muxaramaata oo shirkiya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogeynaya inuu qofkaasi uu ku dhaqaaqo. abaalmarintuna ay tahay inuu shaydaanku qofka caawiyo uu ka caawiyo sixirkii uu u baahnaa iyo ciddii ay tahay inuu wax yeelo ama wax dhibo ama wax u qabto. maxaa ka mid a waxyaalaha dadkan saaxiriintu
ay shaydaanka ugu dhowaadaan siduu ugu qabto hawshooda. waxa weeyaan dadka saaxiriinta wax sixraya qayb ka mida waxay xidhanayaan kitaabkii ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankii kariimka ah walciyaadu billaah ayay kaba ka dhiganayaan waxa weeyaan sidii kabahoo kale ayay xidhanayaan musqushay ku gelayaan walciyaadu billaah. qayb ka midii waxa weeyaan aayadaha kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ayuu maalan xaydka ama dhiigga caadada ee dumarka oo kale ama maniga ragga oo kale waxa weeyaan ayuu ku qorayaa kitaabka ilaahay ku qorayaa suuradihii qur-aanka sida faatixada oo kaleba si cakisa uu qorayaa. qayb baa waxa weeyaan qofkan saaxirkii bilaaweysu ku tukanayaa. qayb ka midii janaabo bay lahaanayaan janaabada iskama maydhayaan. qayb ka midii waxay u qalayaan shaydaankii bay wax u qalayaan iyagoon magaca ilaahay subxaanahu watacaala bisinka u qabanin bir bay afka gashanayaan si aanay ilaahay subxaanahu watacaala magaciisaba aanay u xusin. xataa dabeetana sidii kolba loo amro ayaa la odhanaya qayb ka mid a meel heblaayo uu qofkii shaydaankii uu sheegay ayaa leeyahy meel heblaayo ayaad dhigaysaa. qayb ka mid waxaan xidigaha dayaxay xidigaha ay la xidhiirayaan ama ay u sujuudayaan halkii ilaahay uga sujuudi lahaayeen. qayb ka midoo saaxiriintaasi waxa weeyaan wuxuu u galmoonayaa u qasbayaa ama hooyadii ama inantiisii maxaarimtiisii buu zina ula tegayaa. qayb ka midna dalaasim iyo alfaad aan la garanayn oon jirin oon af carbeedna ahayn oo ku macnaheeduna kufri yahay ayay qorayaan. kuwaas waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka saaxirka ah lagu amrayo inuu sameeyo si shaydaankii uu u aqbalo oo uu dabeetana uga caawiyo waxyaalaha uu doonayo inuu u sameeyo. halkaa walaalayaal waxaa inooga cad in jinnigu aynan qofka ama shaydaanka inaan qofka saaxirka aanu caawinayn free aanu ku caawinayn. adduunka waxa weeyaan waxay tirahaa qolada la joognaa nothing for free, wax free oo bilaashi ma jiro, wax waliba price iyo qiimo ayuu leeyahay. marka qofka saaxirkii uu gaalnimadiisu ay sii fara badato oo waxyaalaha ku talaaba waxyaalaha xunxun ay noqoto shaydaankiina wuxuu noqonayaa yani xoog buu caawinayaa mutiic buu noqonayaa waxa weeyaan waxyaalaha badan buu adeegayaa kalamana murmaya uu ka dhageysanayaa degdegna wuu ugu fulinayaa waxyaalahaasuu ka dalbaday. marka uu qofka saaxirkii uu ka gaabiyo inuu fuliyo waxyaalihii shaydaankii uu ku amray ee gaalnimada ahaa, shaydaanku waxa weeyaan wuxuu hoos u dhigayaa wada shaqayntii dhexdooda maraysay ayaa hoos u dhacaysa. wada shaqayntu haddii jirto uu jiro qof saaxir xoog u shaqaynaya qofkaasi waxa weeyaan waa qof walciyaadu billah gaalnimo fara badan kufri fara badan ilaahay subxaanahu watacaala kaga fogaaday. kaana markaa waxaa ku murtax noqonaya oo habi ku noqonaya saaxirkii. jin buu soo diraya caawiya waxa weeyaan caawiyo oo wax la qabta maxaa yeelay wuxuu gaadhay darajadii ugu sarreysay ee ilaahay subxaanahu watacaala lagaga fogaanayay. markaa qofka saaxirka ah iyo shaydaankan uu adeegaya ee jinka marka dambe u soo diraya waxa weeyaan waa laba saaxiib waxay ku saaxiibnay ee beenna waxa weeyaan macsiyadda ilaahay subxaanahu watacaala. inta badanna qofka saaxirkii qofkan la xidhiidhaya shaydaanku arrintaa uma adeegee kama caawiye laakiin jin isaga u shaqeeyo jinkiisa ka mid ah ayuu leeyahay hebelow waxa weeyaan waxaad ku qoran tahay saaxirka hebel orodow adeeg waxyaalaha uu kaa dalbanayo ama uu ku sheegayo. hadda jeer haddii qofka saaxirka qofka hadduu wejigiisa eego waxaad arkaysaa foolxumo, waxaad arkaysaa yani dulmi madow mugdi waxa weeyaan daruur madow baad moodaa qofka walciyaadu billahi inay haraynayso. haddii qofka biniaadamka qof saaxira uu bartana waxaad ogaanaysaa qofka saaxirkii inuu nool yahay nolol aad iyo aad u adag, inuu nafsiyan yani psychological iyo nafsiyan inuu qofkaasi qof baabaa uu yahay. hadday tahay xaaskiisa iyo awlaadiisa uu la nool yahay, hadday tahay naftiisa hurdo fiican ma seexanayo oo habeenkii sidaas qofku uu seexanayo intuu iska weysaysto iska jiifsanayo oo ayadaha akhrisanaya ma laha, damiirkiisii murtaax maaha oo inuu waxaan gaalnimo samaynaya wuu ogyahay, inuu ilaahay subxana watacaala ka fog yahay wuu ogyahay, abaalmarintiisuna inay tahay dee meel xun inuu ka dhacayo ilaahay subxana watacaala abaalmarinta ugu xun uu siinayo wuu ogyahay, inuu dad dhibayo waxa weeyaan waxba aan u geysanin inuu dhibayo wuu ogyahay. habeenkii waxaa la sheegaya intaasoo jeer ay hurdada kasoo toosayaan ay kasoo kacayaan. taa waxaa inoo raaca in shadaadiin fara badan oo u shaqeeya qofka saaxirkii waxa weeyaan qofka saaxirka ah ay awlaadiisa dhibaan, ay xaaskiisa dhibaan, dhexdoodana dagaal iyo khilaaf ay geliyaan. marka ninkaasi waa nin sidaynu idhaahno hebel maradiisii baa ku olashay waa qofkan saaxirka inta badan maradiisa ku olashay oo qof tuma'niino iyo xasilooni iyo raaxo dareemaya haba yaraatee qofkaasi maaha. ilaahina subxaanahu watacaala kitaabkiisa suura taaha wuxuu inoogu sheegay ayadda 134 waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka qofkii ka weecda ee ka sii jeesta
xuskayga iyo dee yani iimaanka keenaya xuska ilaahay subxana watacala in qofku mar walba ilaahay xusuu carabka ku hayo fa ina lahu maciishatan danka qofkaas ilaahay subxana watacala wuxuu siinayaa maciishad iyo nolol aad iyo aad u adag oo u cidhiidhiya halka dhinaca kale ilaahay subxaana watacaala dadka wanaagga la yimaada uu nolol wanaagsan iyo iimaan fara badan oo siinaya man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min falanuxiyanahu xayaatan طayiba man camila qofkii la yimaada camal saalixa oo wanaagsan qofkaasi ama lab ha noqde ama dhidig ha noqde waxa weeyaan maxaa abaalkiisu noqonaya marba hadduu qofkii camalkii saalixa la yimaado abaalmarintiisi rag iyo dumarkay doonaan ha noqdaane wiilalyo gabdho kay doonaan ha noqdaan dadka camalka wanaagsan la yimide abaalkoodu wuxuu noqonayaa falanuxiyanahu xayaatan طayiba waxaanu noolaysiinaynaa nolol wanaagsan waa xayaadada saciidka ah waa liibaanta waa baraaraha waa nolosha wanaagsan ee qofka bani aadamkii qalbigiisa iyo laabtiisa uu ku dareemayo xasilooni iyo deganaasho iyo waxaan luqada kalena happiness loo yaqaano carabtuna sacaado ay u taqaano soomaaliduna dhiibaan iyo baraare loo yaqaano waxaynu u gelaynaa insha allahu tacaala sixirka kitaabka ilahi toloma ku soo arooray sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam toloma ku soo arooray mise kuma soo aroorin sixirku waxa weeye waa arrin jira jinka iyo shaydaanku waa arrin jira ilaa sixirkan jin baa hawshaa la imanaya cilaaqad weyn baa walaalayaal ka dhaxaysa jinka iyo sixirka jinka iyo shadaadiintu waa caamilka asaasiga ah ee waxa weeyaan hawshan sixirka ka dambeeya dad badan baa jiro waxay ku leeyihiin jinku maba jiraba marba haddii ay ankareen ay ka murmeen ay diideen jinku inuu jiri karo dee markaa waxaa jiri jinkii iniga waxaan leenahay jinkii iyo shaydaankii ayaa caamilka ugu weyna dee sixirka sameeya ah marka haddii la yidhi jinkii ma jiro taasi waxay keenaysaa inay iyagu haddana ku murmaan jinkii ma jiro markay yidhahdeen haddana waxay ku qasbanaan inay yidhahdaan sixirkuna arrin jirta maaha jinku inuu jiro ilahi subxaana watacala wuu inoo sheegay kitaabkiisa waid sarafnaa ilayka nafra min aljin yastamicuuna alqur'aan wakti aanu kuu soo diray aanu kuu soo weecin aanu kuu soo leexinay nafar dhowr waxa weeyaan 10 ka yaroo jinka ah waxa weeyaan yastamicuuna quraanka inay dhageystaan imaam axmed raximahullah wuxuu musnadkiisa ku soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay leenoo cadeeyey horta inaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam si toosa markaa hore jinka intuu soo fadhiisiyey aanu wacdi markii hore aanu u gelin aanu aragna la hadlin nebigu calayhi salaatu wasalaam isagii saxaabadiisii ayaa way israaceenoo meel suuqu cukaad la yidhaahdo ayay tegeen wakhtiyada ay tegayaan waxa weeyaan jinku waxa weeyaan madaxda jinkuba waxay amri jirtay jinka had iyo jeer inay soo dhegadhegeeyaan warka samada ka socda dabeetana warka samadu siduu usoo socdo samada ugu soo hooseysa ayaa warka qayb ka midii soo gaari jirtay warkaasay riboortka ama warkaa ayay soo ururin jireen oy keeni jireen markii ilaahay subxaana watacala nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu soo diray ayaa la mamnuucay in warkii mar dambe u baxo oo warkii baa ilaahay subxaana watacaala xifdiyey u ilaaliyey waxa weeyaan qolooyinkii tegayay warkaa doonanayeyna waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan olol ayuu u soo diraya ama shuhub waxa loo yaqaano dabeetana shadaadiintii la diray subaxii ayaa geligii dambe soo noqotay waxay tiri xiila baynana yani waxa weeye waxbaana kala na dhex taagan annaga iyo samadii aanu warka ka heli jirnay waxbaa dee isbedelay aanan garanayn khabarkii samada ama cirka waxbaa ka siiya dabeetana waxay yidhahdeen raggii dee qamaamiirtoodii dee markii horeba diray ee subarfaysarada ahaa ee jinka ahaa waxay yidhaahdeen maa xiila laydikama qabanin laydikama joojin idinkiyo warkii samada ilaa lishayin cadiimin qad xadath arrin weyn oo cadiima ayaa dhacday oo idinkala qaadaye waar balbari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi u kala goosha oo waar bal soo ogaada warkii cirkay khabaru samaa waxaan idinka xanibay idinka cunaqabateeyey waa inaad soo ogaataan baa layidhi jinkii baa lagu amray yaryaraabaa kuwii waaweynaa baa ku amray siday u socdeen ayaa qaybihii la diray qayb ka midba suuqa cukaadu nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu joogo ayay yimaadeen salaaddii subax bay gaadhay nebigu caleyhi salatu wasalaam wuxuu tujiyey saxaabadiisii isagoo tujinaya iyagana way fadhiisteen oo way dhegeysteen warkii bay maqleen waxay yidhahdeen warkani waa warkii innaga iyo warkii cirka laynagu kala gooyey waxaa laynoo kala gooyey waa nebigan iyo risaaladan iyo buuggan iyo qur-aankan u akhriyayo qoomkoodiiba u soo noqdeen jinku waxa weeyaan dadka way ka qalbi fiican yihin dacwadooduna way ka degdeg badantay yacni sharkooduna uu ka badanyay manfacadooduna way ka badantay markay intaa qur-aankaa dhegeysteen
intaa imka innaga walaalayaal dikri dhegaysanaya intaa wacdi dhegaysanaya intaa habeenaya maalin yani barnaamij dhegaysanaya oo culamo dhegaysanaya oo tafsiir akhrisanaya haddana mar walba dembigii iyo macaasidii qalbigeena way ka buuxdaa wax ku camalku aad buu inoogu yeelay marka jinka loo eego jinkii markiiba iimaan bay la yimaadeen yaa qowmana واتصرفنا إليك نفر من الجن فلما حضروا قالوا أنصتوا وحده والبدقيستا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين مركوا النبي صلاة فجر دميه قوم كوذي بيقصون نقدين يا قومنا إن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قوم كيغا يو تول كيغا يو تد كيغا نشعلينو waxaanu maqalnay kitaab waxaynu ugu dambaysay nabi muuse kitaab nabi muuse gadaashii ama dabadii soo degay قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ومد رمينا يبا هذا الكي وعدي النبي موسى ليمد يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم تذكر وعضينا يا ودوين كي وناك سريد حقي بوشيغيا ودته صنو صحنا وكرديا يا قومنا أجيبوا داعي الله مركب وعدي بقلين رجي صلاة الصبح دور آيات فجر كي سور دقي يسوي النبي وآخره أيام مركب علماء نقضيو قوم كودي وعدي خطبة ضوقلي يا قومنا أجيبوا داعي الله ورقوم كيو ورهنوا أجيبنا يعني رواقا النبي قال نوصل دري أجيبوا داعي الله وآمنوا به هاي رمينو أبالكم نقوليا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وردم بقينا إلى هو إذن دافع دونا عذاب كل الله إلهي سبحانه وتعالى وإذا كبت بهذه دونا وإذا كبت بهذه دونا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله في الأرض ولا في السماء يعني وحويان دعوت بين مركبة أي كلام jinkii la diray la yiri war waxba dhacay arinkan cunaqabataynta inagu dhacday laga daba tago waxa weeyar markiiba waxay yiraahdeen haynu bal arinta hawsha haynu soo ogaano walaaluhu waxay sheegayaan waqtigii xalqadii labaad inuu dhamaaday insha Allah taala habeen dambe aynu ka sii wada doonaa ayadihii kale iyo xadiistii jinka iyo kuwii sixirka insha Allah taala habeen dambe halkaas aynu ka sii wari doonaa intaynu habeen dambe insha Allah taala kulmi doono waxaan idin leeyahay Allah inaga aqbalo soonka Allah inoo fudaydiyo جزاكم الله خير في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالم إنك قصر